wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa maanta gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Doolow ayaa waxa taliyaha ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada howlgelinta Jubbaland Bakaal Koke taliyaha ciidanka Nisa gudoomiyaha degmada Cali Faarax Mire iyo waliba mas'uuliyiin kale ujeedka safarka taliyaha ayaa lagu sheegay kormeer uu ku sameyn doono xarumaha ciidamada asluubta ay kaga sugan yihiin degmooyinka gobolka Gedo isagoona sidoo kale kulan la qaadan doona saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmada Doolow si la mid ah wafdiga uu hogaaminayo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa kulan isxog wareysi ah la qaadan doona maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka booliska iyo kuwa asluubta isagoona halkaas ku sugnaan doona maalmaha soo aadan safarkan taliyaha ciidanka asluubta ayaa naqanaya markii ugu horeysay uu gaaro deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo waxaana safarkiisa uu qayb ka yahay dardargelinta howlaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Aadan Ali Axmed VOS TV magaalada Muqdisho.